نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قصة النبي موسى وقصة ugu badan ee baweyne quraanka ku sheegay waxa magaca kaliya ee Muuse alla quraankiisa uu ku xusay 36 jeer. abtirsiinta nabi Muuse waxa ay noqonaysaa Muuse ibn Imraan ibn Qaahith ibn Aazir ibn Laawe ibn Yaqub ibn Isxaaq ibn Ibrahim al-Khalil alayhi salaam. inta aana bilaabin qisada nabi Muuse waxa isxasuusin mudan inaan dib ugu noqono nabi Muuse iyo reer banu Israa'iil meesha ay ka soo jeedeen markii nabi Yuusuf uu la heshiiyay walaaladii waxa uu soo kaxeeyay aabihii nabi Yaqub iyo dhammaan ehelkiisii waxayna degeen wadanka Masar waxa ka talinayay nabi Yuusuf alayhi salaam waxayna ku noolaayeen wadanka Masar muddo dheer nabi Yaqub waxa lagu magacaabaa Israa'iil ubadkiisa waxa la dhahaa banu Israa'iil reer banu Israa'iil waxa ay ku noolaayeen Masar sidoo kale waxa kula noolaa qibdiyiinta qibdiyiinta masaaridu waxay reer bani Israa'iil u geysteen dhibaato badan oo aan ka soo noqosho lahayn way laayeen hantidoodii bay dhaceen kadibna adoonsadeen xaakimada xukuma Masar waxa la dhahaa Fircoon sida kuwii xukumi jiray dhulka Xabashida loo dhaho Najaashi ama kuwii xukumi jiray Furus loo yiraahdo Kisra ama kuwii xukumi jiray Romaaniska loo dhaho Qaysar. fircoonadii Masar waxay adoonsadeen reer banu Israa'iil oo ka soo jeeda nabi Yaqub muddo kadib waxa xukunka Masar la wareegay Fircoon adag oo ka xun kuwii hore fircoonkani waa naxariis laabe waxa uu cadaabad xun iyo xaasidnimo fogaatay oo xeel dheer u haya reer banu Israa'iil waxa uu ku kacay arimo badan oo la yaab leh oo aan weligeed horey loo maqal wuxuu sheegtay inuu yahay ilaah kaaba si darane wuxuu sheegtay inuu yahay rabbi fircoonkani in badan buu quraanka inoogu sheegay sida uu u gumeystay reer banu Israa'iil waxa uuna ahaa taliyihii ugu awoodda badnaa inta taariikhda la og yahay. fircoon waxa uu bilaabay inuu iskugu yeero golihiisii wasiirada iyo la taliyaashiisii kadibna waxa uu go'aankii noqday in la gooraco dhammaan caruurta reer banu Israa'iil dhab ahaantii waxa uu diray ciidankiisii oo kor kala socday dhammaan inta uurka leh waxa ayna wadada iyo meel kasta u joogay basaasiin kor kala socda islaamaha uurka leh markasta oo ay arkaan wiil yar oo u dhashay reer banu Israa'iil way gowracayeen xitaa haweenka uurka leh waxa kor kala socday basaasiinta fircoon maalintii dambe waxa kuwii wasiirada ahaa fircoon u soo jeediyeen in hadii la laayo dhammaan caruurta iyo da'yarta aan la heli doonin cid qabata shaqooyinka u yaala dawladda kadib fircoon waxa uu soo saaray qaraar ama wareegto gale oo caruurta sanadna lagu gooracayo sanadna lagu dhaafayo sanadkii la dhaafayay wiilasha yaryar waxa dhashay nabiyullaahi Haaruun alayhi salaam oo la dhashay nabi Muuse oo isku aabe isku hooyo ahaayeen sanadkii caruurta la gooracayay waxa dhashay nabi Muuse alayhi salaam. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك إنا رادوه
nebi muuse hooyadii markay umushay waxa ay u cabsatay wiilkeeda qalbigeedana waxaa galay warwar iyo murugo kadibna eebbe ayaa u waxyooday nebi muuse hooyadii waxaa la faray in ay samayso sanduuq ka samaysan loox kadibna ay ku rido muuse kuna tuurto biyaha badda waxa uuna eebbe ku yidhi nebi muuse hooyadii ha ka cabsanin waxa soo socda mustaqbalka hana ka murugoonin waxay ku dhaafay waxa uuna eebbe u ballan qaaday in ilmaheeda loo soo celin doono dhowaan kana dhigayo rasuul iyo nebi muuse hooyadii waxay ku tuurtay sanduuqii badda sanduuqiina waxaa qaaday mowjadaha badda waxayna geysay xeebta kadibna waxaa helay sanduuqii shaqaalihii qasrigii fircoon sanduuqii markii la furay waxay ka heleen cunug yar oo wejigiisu nuuraayo isla markiiba fircoon waa loo sheegay sidoo kale way garteen in cunugan yari ka yimid reer bani israa'iil fircoon wuxuu yidhi gowraca laakiin xaaskii fircoon oo ahayd ruux aad u qalbi wanaagsan ayaa tidhi hadlinina waan ku indha doogsanaynaa waxaana laga yaabaa inuuna anfaco ama aan ka dhiganno ubad fircoon ma daraensanayn inuu yahay cunugii isaga owgii uu u laayay carruurta reer bani israa'iil eebbe ayaa u soo diray si uu ugu noolaado gurigiisa una noqdo murugadiisa nebi muuse waxa uu ku barbaaray qasrigii fircoon oo ay ka buuxda gaalnimo fara badan laakiin alle subxaanahu watacaala nebi muuse waxa uu ka buuxiyey iimaan ilaa uu ka xoogaystay نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين